الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدعوينا ورئيس الصومالية مدير الشريف إمام كي وقاسك طبعا كأبقال وشرفت له صحافة سراكيش عيد مدى نبضونك نبض عيدو سبضون عبد الرشينو نبض بيلو دخيار كوضي بربار كوضي بالعام طولة أمان انت معك سو حاضرتي وكنتي نبض إيه خيرك وشرفت لسو جريسي وددك إلي ولا لوبين جعلان دوخ كتيراهو دافع كوبحسو حوقها كوبحسو صوراء كوبحسو بوركها كجعلاتو وعنكو سلامينا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إله محمد ما أنت واحد جوجنا ميل قيمة له ميلان جعلنا هاي ميلان سوينا إن قارنا جوجنا قلبته وعن إلهي كبرينا إن إلهي تمضينا ميل ونأكسر وبيجي واحد ضم إلهي أصور وصورنا وعن رجينا ضدك إنا إسلام مالي دوران beeraha isla fala doonaan baldaankii isla shaqaysan doonaan xoolaha isla daqa doonaan saaxiibtinimadii jirtay iyo dhaliyadii jirtay iyo dhaqaalkii la isku qabay dhammaantood inuu soo noqdaan rajaynayna waxaan idinka codsanaha oo idinkula dardaarmaa cabdalle iyo maxamed muuse dadku walaalana waa yahay waana isdaliyey saaxiibna waa leeyahay wax walba oo bini aadamku isugu jiro wanaagho isugu jira diris iyo muslimna waaya waxaan rabaa inaan aad ahaataan ilaahay dadka wuxuu ugu talagalay inay noqdaan inaad naqataan inaad walaalowdaan inaad diristaan in la dhowro dhaqaalihii in la dhowro dhalyadii in la dhowro dilisnimadii in la dhowro islaamnimada intaas oo wanaaga aan waxaan rabaa inaad ilaalisiin dadkaan waa isku dad hal dad waaye laba dad maaha waxaan rabaa inaad dib u fiirisaan wixii lagu soo dheeday wiilalaa laga dhintay dheefaa naga dhuntay dhaqaalxumo badanaa dhacday uurkaa wax galeen maxaa noo soo siyaada shalay markaan wanaagsanayn meeshii unu joognay dad khasaara naga maqan maana wax faa'iidaa ma hayno maxamed muuse cabdalla caroonow waxaan rabaa inaad wixii dhacay aad ka qoomamaysaan inaad ilaahay ka tuugtaan inayna dib iyo inaynu u soo naqano wax qof qalad sameeyaysa adaan ku taageerina qalbigiina inaad wada gelisaan dadka dhammaantiis waa walaalo waana muslim dhibaatada inay iska dhaafaan oy ogaadaan walaalnimada iyo wehesha inay yihiin nabad inay yihiin qof kasta ee guri raayo haysata qof kasta ee xoolo raayo haysata qof kasta ee caafimaad kasta qabta haddaan nabadun jirin tubaha in la maro waa laga cabsanaa guriga in la seexdo waa laga cabsanaa xoolaha mihii anfacaysa in la geeyan waa laga cabsanaa waxaan rabaa inaad ka tanasushaan wixii aad soo marteen inaad aadaan meesha wanaaggu ku jiro adduunyaduna ku jirto aakhiraduna ku jirto cabdalla caroore maxamed muuse iscafiya si walaalnimaana u dhaqma waxaan u mahadcelinaynaa inta ka qayb qaadata oo imaan leh oo ugaas leh oo madaxweyne leh oo dhaqan afgaal leh oo ciidamo leh oo weriyaal faafiyaya warka leh oo lamada beelood dadkooda samajeclaa leh dhammaan oo gabdhay wiilaya barbaar leh dhammaantiin waxaan idinkaa mahadcelinaa qof kastoo wanaag ka geysatay ilaahay ajir ha ka siiyo ilaahay ajir ha ka siiyo waxaan u ducaysana ilaahay wax kale asaan u soo nago inta kaloo qabiiloo dhibaatadu dhex taalna iyagana waxaan rajahaynaa in ilaahay ka qaadi doono galabta ilaahay ha nooga dhigo sabuunka qaad ilaahay ha nooga dhigo sabuunka qaad ilaahay ha nooga dhigo dadka intaanoo wanaaga gaarsiiyana waxaan ka codsanaynaa inay halaha dhimano dhammeeyaan ilaahay dartiisay u socdeen maahana cid ijaar ku siiyeysa ma jirto xoolana ku qaadamahey qofuna hataa waa mahadsantaa nuguma heestaane waa laydin soo diro ilaahay idin soo diray inta dhimanna inaad dhammaysiin ayaan idinka rajeeyaynaa intaas waxaan kula dardaarmaa
dadka maanta ay qusayso nabadda meesha waxaa jooga dad aad u qiimo badan oo saxaafad leh oo dawlad ka socda oo dhaqan afgaal ka socda oo dhibaatada meeshaan taalla inay herta u yimid dadku bini'aadam waayo gaf waa dhaca gafka dadku waxay qabaan oo dhibaatana nabadaa lagu sheegaa waxaa lagu sheegaa nabad qofku waxay dhibaato qabto nabaday lagu sheegaa hadday qabiil tahay nabadaa lagu sheegaa hadday hal qof tahana nabadaa lagu sheegaa waxaan ka codsanaa dadka meeshaan jooga horta hal cid waayo afgaal ismaan waayo wixii la jirana wax maanta samajeclahooda ah oo ku soo baxay waayo haddaan aan ka gudbo intaas waxaan kula dardaarmay dadkii meeshaan loo yimid nabaddooda anigu waxaan ahay nabadoonkii cabdilla caruur waxaan rabaa inaan idiin sheego qabiilka la yidhaha cabdilla caruure oo afgaal ismaanahoo walaalihiina waxaan rabaa inaan idiin gudbiyo tabasho isu qabo inaan idinku gudbiyana nabad inuu tabashadaas nabad ku rabo inuu ku helo nabad inuu ku jeediyo nabad asigoo u jeedinaya mas-uuliyiinta meesha joogto madaxweyne shariif ugu horreeyo xildhibaan qaranna ah imaankay ugaaskana joogaan dhaqankii afgaalle ay joogaan saxaafadduna ay joogaan saraakiisha ciidankana ay joogaan tabashadiisu waxay tahay wuxuu tabasho ka qabaa qaab dhismeedka dowladda federaalka soomaaliya waa sheegiyey kow iyo labo walahan ka badanow sheegiyey laakiin waagaa lagama qancin wuxuu rabaa si nabada asoo ku sheegaya in laga qanciyo si nabada asoo ku sheegaya u sheegaya saxaafadda u sheegaya madaxweyne shariif u sheegaya imaamka ugaaska u sheegaya dhaqanka afgaal dhammaantiis wuxuu rabaa inuu tabashadaas nabadow ku sheega dowladdu waxaa waaye waa waalid shacabka soomaaliyeed oo dhamay waalid u tahay waalidkuna hadduu ilmaha uu yidhaha halla gurigayow imaan halla uu ilmaha la korsho ilmuhu heshiis laga maaya waxaan rabaa si oo walaalnimo ah oo nabad ah ayaan waxaan idinkugu dhiibay tabashada cabdilla caruure qabo in la qanciyo cabdilla caruurena waxaan ka rabaa oon ka codsanaa colaadda oo walaalihii isla qabo inuu si walaalnimaa oo islaamnimaa oo dirisnimaa oo ahalnimaa inuu badaago warka way idinka badseen raalli ahaadda waana mahadsantihiin warkaygana intaasaan ku soo dhammayhaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.